maamulaha dugsiga New Gabiley ee magaalada Gabiley oo telefishinka caalamiga ah Bulsha TV kula hadlayay gudaha dugsigaasi ayaa waxa bulshada reer Gabiley ugu baaqay in ay ka soo qayb galaan dhismaha deegaanka oo lagu dhisayo iska wax u qabso isla markaasina ay ballantu tahay maalinta Khamiista waxaana hadaladiisii kamid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim halkan aynu joogno waa dugsigii New Gabiley oo la dhisayo sida aad ogtihiin deyrkaasi oo lagu dhisayo iska wax u qabso waxaan baaq u diraynaa oo ku celcelinaynaa marka koowaad mar labaad mar saddexaad dadweynaha reer Gabiley sida ay u dhan yihiin madax iyo mudane caruur iyo ciroole ganacsato farsamo yaqaan aqoonley arday intuba inay ka soo qayb galaan dhismaha deyrka New Gabiley oo la bilaabayo maalinta soo socota ee Khamiista ardaydu qayb lahaad dugsiga qaadasay macallimiintu ka qaadanayeen waxaanu dadka iyaga walaalahayo ka codsanaynaa si naxariis looga codsanaynaa dadweynaha reer Gabiley ee maqlaya inuu ay ka soo qayb galaan maalinta Khamiista ee uu bilaamayo deyrka dugsiga New Gabiley waxaan aad iyo aad u jecelahay dantaku waxaan aad iyo aad u jecelahay inoo la dhageysto hadallada wanaagsan inoo wadanku aw hormaro meel kasta oo danguud ka jirtana aan hormarino ilaahayna wuxuu inala qabanayaa marka aynu iscaawino wax isla qabanno deyrka baahida loo qabay aad iyo aad bay u ballaaran tahay waxa dhigta 1,100 arday oo ubadkii Gabiley 1,100 ka arday 20 sanadood oo dugsigaasi soo dhisnaa waxaan joogay 17 sanadood baan joogay 17 sanadood ee aan halkaa joogay 17 sano caqabadaha aan arkay nacam qofka damiirka leh fadhiiba maayo wardeyrka kaale dhisa dhibaatada deyrlaanta ka timiday tusaale yar hadaan idinka siiyo kaloo noogu soo gashay sanad ka mid ah sanadahan dhawey gabar 2 midyood seeta 2 midyood iskuul lisaysa kalaas noogu soo gashay nacam ardayda yar anigii baa كوما قال قالي درقي بان نعم كو قبل قريدير كرسي دير بان كو قبل هاي ادو markii daba war xidhnay markii waalidiinta ardayda waxaan si gooniyo ugu sheegaya inoo sida awalba ay jaajuurkii u soo direen afartii xabee jaajuurka ahaa iskuul kastaba waalidiintu way direen iskuulkay doonaan aadaan bareefad iyo public ba aad iyo aad baan wallahi u hambalyeynaya waalidiinta ardayda dhashay iyo ardaydaba waxaan leeyahay mar labaad idigoo hawsha galay خميس يجمع على رزق كل بكرة سوق قيب كلا. وعبد السلام أحمد بن بلشة TV Gabiley.